waxaan ahay Maxamuud Axmed barnaamijkuna waa barnaamijka alwadaniya waa barnaamij gaar ah oo aan inuu soo tamin doono kaas oo aan kaga hadli doono wadaniyada iyo qiimaha uu wadanku u leeyahay haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo alla haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane agarlii wuxuu qabo wana lama huraane agarlii wuxuu qabo dhegaystayaal waxaynu wada ogsoonahay in wadaniyada laga qoray buugaag badan kuwaas oo ku qoran afkeena hooyo iyo kuwa kale oo laga soo turjumay afafka qalaad dhamaantood buugaagtaas waxa ay ka hadlayaan wadaniyada iyo qiimaha uu wadanku leeyahay buugaagtaas intooda badan waxa laga helayaa maktabadaha goobaha waxbarashada xafiisyada dawladda guryaheena iyo goobaha ganacsiga balse dhagaystayaal waxaa nasiib darro ah in muddo 30 sano ka badan aan maadada wadaniyada lagu dhigin goobaha tacliinta sida iskuulada macaahidda maraakista jaamacadaha iyadoo ay waliba taasi sii dheer tahay in warbaahinta qaranka iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay aysan tabin barnaamijyo joogto ah kuwaas oo ka hadlaya wadaniyada iyo qiimaha uu wadanku u leeyahay marka aynu gadaal u milicsano dawladii dhexe ee 90kii ka hor dalka ka arrimin jirtay waxaa jiray barnaamijyo si toos ah uga bixi jiray raadiyo Muqdisho barnaamijta qaar kamida waxaa diiradda lagu saari jiray dowrka ay ku leeyihiin horumarka iyo wadaniyada dalka macallimiinta ciidamada injineerada dhaqaatiirta dhalinyarada bulshada rayidka ah iyo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan dhagaystayaal wadaniyada ama wadan jacaylku waxa uu ka qayb qaataa dhismaha dawladda horumarka dalka iskaashiga dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan haddaba dhagaystayaal halkan waxaan inuu ku soo gudbin doonaa daraasado buugaag iyo macluumaad badan oo la xiriira wadaniyada iyo qiimaha uu wadanku u leeyahay kaas oo loo baahan yahay xilligan in guud ahaan idaacadaha telefishinada iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan in ay si joogto ah uga baxaan waxa aad nugula wadaagi kidhaa dhagayste wax walba oo macluumaad ah oo la xiriira barnaamijkan linkiga ama WhatsApp-ka shaashada inay ka muuqda barnaamijkan waxa soo diyaariyay inina soo jeedinaya anigoo ah Maxamuud Axmed Cabdi Urshe الفجر أيا لقاها ربا